أسعد الله مساءكم قيارتا نلا سعوتا ميل كستو دونيدا كجوجتان سو دوادا waa 17 bisha June sanadka 2026 tabinta kalabnimo ee maanta iyo barnaamijka faaqidaada wararka caalamka iyo taxliilka diblomaasiyadda barrow qodobada idin kugu hayo waxa kamid ah dowladda Ruushka ayaa si weyn uga soo horjeesatay weerarka lagu hayo wadanka Lebanon wasiirka muraha dibadda Sergey Lavrov oo la hadlay dhigaysa wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa waxa ay si weyn diiradda u saareen xaaladda ka taagan wadankaasi ilaa iyo hadda Ruushka jawaab ku aadan arinta wada xaajoodka iyo heshiiska mareykanka iyo dowladda Iran jawaab rasmi ah oo faahfaahsan kama aanu bixin dowladda Shiinahana markii ugu horeysay waxa ay tafaasiil ka bixisay aragtideeda la xiriirta heshiiska maalinta Jimcada ah la doonayo in loogu xafladeeyo magaalada Geneva ee wadanka Switzerland dowladda Switzerland ayaa war ka soo saartay nooca xafladda la qaban doono maalintaasi oo ay ka qayb gali doonaan madax sare oo caalamka madaxweyne ku-xigeenka wadanka mareykanka JD Vance waxa uu si weyn faahfaahin uga bixiyay nooca heshiiska dowladda Iran ay la galeen kaasi oo tilmaamay maalinta Jimcada ah dunida in loo faafin doono heshiiskan ayaa loo diiday in la tuso nidaamka Israel taas oo ay walaac badan ka muujiyeen qodobadaasi warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xiisadda gobolka Bariga Dhexe dagaaladan soconaya sida xal looga gaari karo loolanka diblomaasiyadda iyo waliba raayul caamka sida loogu dagaalamayo ayaan si gaar ah ugu faaqidi doonaa barnaamijka ee soo dhawaada ee qiyaarta ay nala socotay markii ugu horeysay dowladda Ruushka ayaa ka hadashay duqeymaha nidaamka gacan ku samayska ah ee Israel ay ka wadaan gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan magaalooyinka ku yaala dalka Lebanon iyadoo maanta duqeymo kale oo hor leh ay dhaceen wasiirka muraha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa si weyn u diiday tallaabooyinka nidaamkaasi ay qaadayaan ee ka dhanka wadanka Lebanon waxaana uu la hadlay dhigaysa wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi labada dhinac waxay iska kaashadeen sidii loo raadi lahaa loona yabyabi lahaa nabad ka dhalata gobolkaasi Bariga Dhexe gaar ahaan colaadda ka taagan wadanka Lebanon wasiirka muraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa wada hadal dhanka taleefanka ah la yeeshay dhigaysa wadanka Ruushka Sergey Lavrov oo kaasi oo ka wada hadlay heshiiska afgaradka ee Iran iyo Mareykanku ay gaareen iyo xaaladda amni ee gobolkaasi ka taagan wasaaradda muraha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in Araghchi uu Lavrov ku adkeeyay weerarada ay Israel ka wada Lebanon inay yihiin kuwa si degdeg ah loogu baahan yahay in la joojiyo iyagoo sheegay in si socoshada weerarada noocaas ay halis gelinayaan dadaalada lagu hayo xiisadda ka aloosan gobolka Bariga Dhexe taasoo dhibaatooyinkeeda ay si weyn u sii kordhayaan intii ay socdeen wada hadallada Araghchi waxa uu sidoo kale ka hadlay Lavrovna la wadaagay faahfaahinta heshiiska afgaradka ee dhaxmaray Iran iyo Mareykanka isagoo sharaxay qodobada muhiimka ah iyo waliba tallaabooyinka xiga ee la filayo in la qaado dowladda Ruushka ayaa waxay tahay saaxiib istiraatiiji ah oo si weyn ugu dhow dalka Iran oo muddo dheer colaad kula jiray dalka ugu weyn reer galbeedka ee Mareykanka iyo sidoo kale xaliifkooda gacan saarka ay la leeyihiin Israel dhinaca kale wasaaradda muraha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in Lavrov uu soo dhaweeyay heshiiska afgaradka ay gaareen Iran iyo Mareykanka waxaana uu cadeeyay in Moscow ay si buuxda u taageersan tahay hirgelinta heshiis kasta oo ay ku qanacsan tahay dowladda Iran laakiin waxa uu yiri wax kasta oo labada dhinac ay ku heshiinayaan waa inay noqdaan kuwa loo siman yahay oo ilaalinaya kala madax banaanida wadamadaasi iyo waliba waxyaabaha muhiimka ah ee si socoshada nabadda gobolka labada wasiir waxay sidoo kale isku raaceen in heshiiska uu u baahan yahay taageero buuxda oo ka timaada beesha caalamka iyo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa si loo xaqiijiyo in guulo dhawaan la gaaray ay noqdaan kuwa si weyn u shaqeynaya ugu dambeyntii Araghchi iyo Lavrov waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay si wada shaqeynta diblomaasiyadda gobolka taas oo muhiim u ah in xiisadda ay noqonayso kuwa meesha ka dhamaanaysa oo ka sii baxaysa caqabadaha ay taagnaa
sida uu qoray wargeyska caanka ah ee The Bloomberg, dowladda mareykanka ayaa xaqiijisay in ay doonayso inay cunaqabataynta shidaalka ee saaran wadanka Iran ay meesha ka saaraan si dowladda Iran ay u dareento kalsooni ay ku shaqeyn karto isla markaana dhinacyada ishaya ay isugu iman karaan miiska wada xaajoodka. wargeyska caanka ah ee The Bloomberg oo soo xiganaya ilo xog ogaala ayaa sheegay in dowladda mareykanka ay isla markii la saxiixo heshiiska kama dambaysta ah ee la gaarayso wadanka Iran ay soo saari doonto ogolaanshiyo waafajin ah oo saamaxaya in la fududeeyo xiisadaha iyo xasaradaha xayiraada ah ee saaran dhoofinta shidaalka iyo batroolka wadanka Iran. sida ku xusan warbixintu waxay sheegtay in mareykanka uu durbaba la wadaagay dalalka xulufadiisa ah ee ka qaybgalaya shirka G7 ee ka soconayay Faransiiska in arintaasi ay muhiim tahay is-afgaradka dhinacyadu inay si weyn u taageeraan dowladda mareykankuna ay doonayso inay ka baxdo dhibaatooyinka colaadaha iyo mashaakiladii taagnaa ee dhibaatooyinka ku haya wadankaasi. warbixintu waxay intaasi ku dartay faahfaahin farsamo oo heshiiska weli la diyaarinayo taasi oo muujisay in isbedelo lagu samayn karo nuqulka ugu dambeeya ka hor inta aan si rasmi ah loo saxiixin oo aan lala wadaagin caalamka. isha Bloomberg ayaa sidoo kale sheegtay in wasaaradda maaliyadda ee mareykanku ay si degdeg ah u soo saari doonto ruqsadaha lagu daabacayo cunaqabataynta saaran shidaalka iyo batroolka kiimikada ah ee Iran marka heshiiska la dhaqan geliyo toddobaadkan. si kastaba ahaatee warbixintu waxay xustay in Iran aysan ka faa'iideysan doonin heshiiska haddii aysan si buuxda u fulin waajibaadka iyo shuruudaha lagu heshiiyay ee dhankooda saaran. waxyaabaha laga doonayo Iran waxaa ka mid ah in aysan yeelan hub nuclear ah, in la xakameeyo ama la dhexdhexaadiyo agabka muhiimka ah ee la hodmiyay ee uraniumka iyo in la xaqiijiyo xorriyadda maraakiibta ee isticmaalaysa marinka Hormuz. taas oo muujinaysa in dowladda Washington ay weli ku dhagan tahay sidii isbedeladaasi loo abaabuli lahaa. dowladda jamhuuriyadda shacbiga Shiinaha ayaa qudheeda maanta warweyn ka soo saartay is-afgaradka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dowladda mareykanka iyo sidoo kale jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran. dowladda Beijing waxay ka mid tahay wadamada gacan saarka suka la leh dowladda Iran kuwaasi oo muddo dheer taageeraya intii dagaalku ay ku jireen. hase ahaatee dowladda Washington oo dhowr jeer oo kala duwan eedeyn u jeedisay Shiinaha, Beijing waa ay beenisay wax ku lug lahaanshiyo taageero military ah inay siisay wadanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Shiinaha ayaa sheegtay in dowladdaasi shacbiga Shiinuhu ay ka go'an tahay baaliyay inay sii wado dadaalada lagu fududeynayo wadahadallada u dhaxeeya mareykanka iyo Iran si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in Shiinaha uu dhawaan diiradda saari doono deeqa cusub oo gargaar bini'aadanimo ah oo loogu talagalay dalalka Lubnaan iyo dalka jamhuuriyadda Iran si looga jawaabo caawintaanka iyo baahiyaha bini'aadanimo ee wadamadaasi ee ka dhashay colaadihii muddada dheer ka taagnaa. afayeenka wasaaraddu waxa uu sheegay in deeqahaasi ay qayb ka yihiin taageerada joogtada ah ee Beijing ay siiso shacabka ay saameeyeen xiisadaha gobolka. dhinaca kale Shiinaha ayaa mar kale ku celiyay mowqifkiisa ku saabsan jasiiradaha ku yaala koonfurta badda Shiinaha isagoo sheegay in uu leeyahay madax banaani buuxda oo aan marnaba laga talagelin jasiiradahaasi iyo biyaha ku areeraysan. hadalkan ayaa imaanaya xilli Shiinaha doorkooda diblomaasiyadeed ee bariga dhexe ay si muuqda u muuqanayeen ama si togan ay u muuqanayeen intii dagaalku uu socday oo xitaa Trump uu booqasho ku gaaray wadankaasi si ay garab u siiyaan. madaxweyne ku-xigeenka wadanka mareykanka JD Vance ayaa tafaasiil ka bixiyay noqolka is-afgaradka heshiiska u dhaxeeya Iran iyo mareykanka kaas oo horay dalab ay u dirsatay Israel si ay u ogaato ay dowladda Washington ku gacan saartay taasi oo muujinaysay si kala fogaanshaha Tel Aviv iyo Washington. hase ahaatee hadda warka soo baxaya waxa uu tilmaamayaa in maalinta Jimcaha ah la doonayo noqolka heshiiskaasi in si
calana oo caalamku u ogsoon yahay loo soo bandhigo. madaxweyne ku-xigeenka wadanka mareykanka JD Vance ayaa sheegay in qoraalka heshiiska is-afgaradka ay gaareen mareykanka iyo Iiraan la shaacin doono ugu dambeyn maalinta Jimcaha si shacabka mareykanku ay u ogaadaan waxa uu heshiisku uu xambaarsan yahay. waraysi uu siiyay maanta telefishinka CBS News ayuu Vance ku sheegay in maamulka mareykanka uu dadaal ugu jiro qoraalka heshiiska lagu sii daynayo kahor Jimcada haddii ay suuragal noqoto dhinacyadu inay si rasmi ah u wada ansixiyaan. waxaan rabnaa in shacabka mareykanku ay si cad u arkaan heshiiska maadaama ay jiraan warar badan oo maran habaabina oo xog aan sax ahayn lagu faafiyo warbaahinta ayuu yiri Vance. dhinaca kale waxa uu ka hadlay arrimaha marinka hormus iyo dowladda mareykanku waxa ay uga gol leedahay. madaxweyne ku-xigeenka mareykanka ayaa sidoo kale sheegay haddii aan dib u soo laabashada isu socodka maraakiibta shidaalka iyo gaaska ee marinka hormus ay bilowday taas oo sida uu sheegay sababtay in qiimaha shidaalka caalamka uu hoos u dhac bilaabay. Vance waxa uu tilmaamay in heshiiska mid faa'iido u leh shacabka mareykanka isagoo xusay in marar badan oo si qaldan loo fasiray ay ahaayeen heshiiska tan iyo markii la gaaray is-afgaradka hase haatee dowladda Washington ay si weyn u diiday arrimahaasi. dhinaca kale waxa uu carabka ku dhuftay faa'iidada dhaqaale ee Iiraan inay ku xirnaan doonaan sida ay u fuliyaan ballanqaadyadooda inta lagu guda jiray heshiiskan iyo fulintiisa. in ay joojiso maalgelinta kooxaha oo mareykanka ku tilmaama argagixisada waa qodob weyn oo muhiim ah iyo inay ka tanaasusho dadaal kasta oo ay ku doonayso hubka nuclear-ka ayuu madaxweyne ku-xigeenka mareykanka hadalkiisa ku yiri. dowladda Switzerland ayaa ka hadashay heshiiska Geneva lagu soo bandhigayo maalinta Jimcada ah iyo waliba sida xafladaasi wadankaasi uu abaabuli doono. inta badan madaxda caalamiga qubarada sirdoonka saraakiisha amniga dhinacyada diblomaasiyadda iyo kaadirka siyaasadda falanqeeya iyo ururo kale oo caalami ah ayaa gaari doona magaalada Geneva si ay qayb uga noqdaan munaasabada saxiixa heshiiska dhinacyadan ay gaarayaan muddada dheer ku dagaalamaya gobolka Bariga Dhexe. dowladda Switzerland ayaa shaacisay in munaasabada lagu saxiixayo heshiiska is-afgaradka ee ka dhaxeeya mareykanka iyo Iiraan ay ka qayb gali doonaan wakiilo heer sare oo ka socda wadamada Iiraan, Qatar iyo Pakistan. war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Switzerland ayaa lagu sheegay in golaha federaalka ee Switzerland uu maanta ansixiyay in ciidamo ka tirsan militariga lagu daabulo si ay u taageeraan hay'adaha rayidka ee qaabilsan sugidda amniga inta uu socdo kulanka muhiimka ah ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran. dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in ciidamadaasi ay gacan ka geysan doonaan xoojinta tillaabooyinka amniga ee wadaan booliiska iyo hay'adaha kale ee rayidka ah ee lagu sugaya nabadgelyada shirka la qorsheeyay inuu qabsoomo maalinta 19 ay tahay bisha June. golahan ayaa muujinaya in ay hadda muujinayaan sida arrintan ay isaga xil saarayaan wadamadan isla markaana la doonayo in lagu soo gabagabeeyo colaadii muddada dheer ka taagnayd wadanka Iiraan ee mareykanku duulaanka ku ahaa. kula wanaagsan qiyaarta nala socota ay tabinta qaybtan intaas ayaan ku akrinaya macluumaad kale ayaa noo soo socda oo aan si wada jira ugu baahin doono YouTube-yada Barrow Show iyo kan Cabdicasiis Barrow hadda naga daawanaysaan soo dhawaada kuna soo biira oo subscribe wada saara waa mahadsantiin.